السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada saaxiibayaal casharkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay sida waqtiga ama saacadda loogu sheego English waa tahay casharka inta aanan u guda gelin hordhac yar oo aad muhiim u ah ayaan arkaynaa halkan waxa ku qoran wall watch iyo hand watch wall watch waa saacadda derbiga waa saacadda derbiga lagu xiro oo weyn hand watchna waa saacadda gacanta marka labada inaa kala ogaato aad ayay muhiim u tahay wall watch waa saacadda derbiga lagu dhajiyo midaan weynta hand watchna waa saacadda caadiga ee gacanta lagu xirto sidoo kale waxaan baranaynaa how to tell the time casharkeenuba muhiimadda uu ku saabsan yahay waa how to tell the time sida waqtiga loo sheego balse waxaa ka horeeya dhowrkan waxyaabood oo muhiim ama aas-aas u ah saacadda in aad sheegto ama aad fahamto inta ay marayso ingiriis ahaan iyo luuqad kastaba balse anagu hadda waxa aynu dul taaganahay luuqadda Englishka sidii saacadda aad u fahmi lahayd marka ugu horeysa past waxaa la adeegsadaa saacadda marka la joogo markii ay daqiiqado dhaafto ayaa la adeegsadaa past ilaa ay ka gaarayso bar ilaa ay ka gaarayso ama 30 daqiiqo ilaa iyo ay ka gaarayso markay daqiiqado la socdaan saacadda waxaa la adeegsadaa past example tusaale ahaan sidee macnaha markay tahay 2:15 daqiiqo 2:15 daqiiqo markay tahay waxaa la adeegsanayaa quarter past 2 15kan waxaa la yiraahdaa quarter ama waa rubac ama waa rubi sidaad u taqaano quarter 15ka waxaa loo akhriyaa saacadda quarter marka qaarna 15 waa la iska dhahaa 15 laakiin inta badan waxaa la dhahaa quarter past 2 labadii ay dhaaftay 15 daqiiqo marka ujeedaa past waxaa la adeegsadaa marka saacaddu ay daqiiqado dhaafto ilaa barka laga gaarayo quarter past 2 labadii iyo 15 daqiiqo labadii ayay dhaaftay 15 daqiiqo quarter past 2 2na waxaa la adeegsadaa marka saacaddu ay dhiman tahay marka ay bar dhaafto daqiiqadaha ay dhiman tahay ilaa saacaddu ay ka buuxsamayso waxaa la adeegsadaa 2 example fiiri hadda waa 3:40 bar mar hadday dhaafto waxaan adeegsanaynaa 2 bar haddaysa gaarinna waxaan adeegsanaynaa past marka fiiri waa 3:40 waa 3:40 waxaan leenahay 20 to 3 20 to 3 waa 3 oo dhiman 20 20 to 3 3 oo dhiman 20 okay markastana waxaa lasoo hormariyaa marka saacadda la akhrinayo daqiiqadaha ayaa lasoo hormariyaa okay quarter inaan kusoo sheegaan filayaa waa rubac ama rubi ama 15 daqiiqo hadba sida aad u taqaano laakiin luqadda ingiriiska marka saacadda la akhrinayo waxaa la adeegsadaa quarter okay halfna waa bar ama nus saac ayaa halfkana la adeegsadaa marka saacaddu tahay oo ay tahay 30 daqiiqo iyadoo faahfaahsan ayaan arki doonaa kusoo dhawaada mar kale What time is it? Waqtiga ama saacaddu waa imisa? It is 2 o'clock. Waa labadii. It is 2 o'clock. Waa labadii. What time is it? Waqtiga ama saacaddu waa imisa? What time is it? It is 2:05. Waa labadii iyo 5 daqiiqo. It is 2:05. Waa labadii iyo 5 daqiiqo. What time is it? Saacaddu waa imisa? It is 10:02. Waa labadii iyo 10. What time is it? Waqtiga ama saacaddu waa imisadii? It is 2:15. Waa labadii iyo 15. What time is it? Waa imisa saacadda ama waqtigu? It is 20:02. Waa labadii iyo 20. It is 20:02. Waa labadii iyo 20. What time is it? Waqtiga ama saacaddu waa imisa? What time is it? It is 25:02. It is 25:02. Waa labadii iyo 25 daqiiqo. What time is it? Saacaddu waa imisa? Saacaddu waa meeqa? It is 1/2 past 2.
waa 2:15 ama it is 2:30 waa 2:30. What time is it? saacadu waa meeqa? What time is it? It is 25 to 3 waa 3:25. It is 25 to 3. What time is it? saacadu waa meeqa? saacadu waa imise? It is 20 to 3 waa 3:20. It is 20 to 3. What time is it? saacadu waa meeqa? saacadu waa imise? It is quarter to 3 waa 3:15 ama rubac. It is quarter to 3. What time is it? saacadu waa meeqa? saacadu waa imise? It is 10 to 3 waa 3:10. It is 10 to 3. What time is it? saacadu waa meeqa? saacadu waa imisadii? It is 5 to 3 waa 3:5. It is 5 to 3 waa 3:5. What time is it? saacadu waa meeqa? saacadu waa imise? waqtigu waa imise? It is 3 o'clock waa 3 oo buuraa. waa 3 oo go'an. inta kalena sidaas oo kale ayaad ugu sheegi kartaa mid kasta. oo saacadu waxay u qaybsantaa dhinacaas haddii aad fiirisid midigta oo baastigu la socdo waa marka ay daqiiqaduhu la socdaan. dhinacan bidixda haddii aad fiirisidna oo tu ay la socotana waa marka ay saacadu dhiman tahay. marka tu haddii la raaciyo waa ay dhiman tahay. haddii la raaciyo baastina waa ay dheer tahay ama daqiiqaduhu waa ay dheer yihiin. half haddii aad aragtana waa nus saac ama waa 30 daqiiqo. waxaan filayaa in aad fahamteen.